wafdi ballaaran uu urkacayo madaxweynaha dalkaasi Burundi Pierre Nkurunziza ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho. Wafdiga oo ka soo degay gagada caalamiga Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, saraakiisha Amisom, kuwa Soomaali iyo waliba mas'uuliyiin kale. Wafdiga uu urkacay madaxweynaha dalkaasi Burundi ayaa soo degista kadib loo gudbiyay hoolka nasashada halkaasi oo wada hadal gaaban ay ku wada labada madaxweyne. Ma jirin wax hadal ay siiyeen saxaafadda labada madaxweyne intii ay ku sugnaayeen gagada caalamiga Aadan Cadde, ayadoona intaasi kadib labada madaxweyne iyo waliba mas'uuliyiinta ay aqoonsadeen inay saxaafadda kula hadlaan xarunta Xalane, laakiin ma dhicinta oo waxay gudaha Xalane ku wada qaateen wada hadal gaaban kaasi oo ku aadan xiriirka labada dal. intaasi kadib wafdiga urkacay madaxweyne Xasan Sheekh ee ku soo dhaweeyay garoonka caalamiga Aadan Cadde, madaxweynaha dalkaasi Burundi ayaa waxay ku soo laabteen aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya, halkaasi oo ay ballan qaadeen inay saxaafadda kaga warbixin doonaan imaanshaha madaxweynaha dalkaasi Burundi Pierre Nkurunziza. Laakiin ma dhicinta oo waxaa xusid mudan in madaxweynaha Burundi iyo wafdigiisa ay ku hareen garoonka caalamiga Aadan Cadde. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud intii ku sugnaa gagada caalamiga Aadan Cadde ayaa waxa uu kulamo gaargaar la yeeshay madaxweynaha dalka Burundi iyo waliba xubnaha ku welinay safarkiisa. lamana oga inta uu qaadan doono safarka uu maanta magaalada Muqdisho ku soo gaaray madaxweynaha dalkaasi Burundi Mr Pierre Nkurunziza. Maxamed Ibrahim Gabo, Royal TV, Muqdisho.